xafladan daahfurka mareegta arabsiyanews.com oo lagu qabtay magaalada Arabsiyo oo ka tirsan gobolka Gabiley ayay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gabiley barasaabka gobolka Gabiley iyo barasaabka xigeenka gobolkaasi ururada bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Arabsiyo iyo marti sharaf kale iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland waxa xafladaasi ka hadlay tafatiraha guud ee shabakada arabsiyanews.com Cabdishakuur Haybe Maxamed waxaanu ka waramay ujeedooyinkii loo aasaasay shabakadan isagoo si cadna u qeexay inay ka howlgali doonto baahiyaha gaarka ah ay u baahan tahay degmada Arabsiyo mareeg ka hadli doonta danaha iyo baahiyaha gobolka Gabiley waa mareeg noqon doonta dhexdhexaad oo si cadaalad ah wax lagu qori doono aan noqon doonin mid cadaalad darro ama afgaar ku hadasha waxay noqon doontaa mid u dhaxa bulshada ku dhaqan dhammaan Soomaaliland bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley iyo bulshada ku dhaqan magaalada Arabsiyo waxaana ka hadli doontaa arrimaha bulshada asbaabaha lagu kalifay inaan website-kan daahfurnaa ama sameeyno waxa ka koowahay baahiyaha ka muuqda maanta magaalada Arabsiyo oo ay ugu horeyso hadday tahay adeegga bulshada oo baahiyaha ugu aasaasiya ka mid ah goobaha caafimaadka waa dareemi kartaa magaalada Arabsiyo waxa ku nool 25,000 dad lagu qiyaasay ilaa haatan ma laha goob caafimaad ma laha waxa dadkeedu u tagaan caafimaad ahaan ama dhakhtar ma laha waxay u tagaan magaalooyinka Gabiley iyo Hargeysa waxaana ilaa haatan muuqda MCH oo lagu talagalay hooyada iyo dhallaanka baahiyaha Arabsiyood waxa ka muuqda wadooyinkeega oo xilli roobaadka ay u muuqato meel dooxiyo noqonaysa oo daadadka haddii aan la iska awdin waxayaguna halkaasi ka hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Arabsiyo waxaanay si weyn u soo dhaweeyeen shabakadan maanta loo daafurayo degmada ay ku nool yihiin ee Arabsiyo iyagoo sheegayna inay baahiyahooga ay u gudbin doonto shabakadani sideedaba saxaafadu sida loo sheegay waa wax laba af leh xaqaayiq weeye afna waxay ku goysaa marka cadow afna waxay ku goysaa baahida iyo jahliga waxa weeyaan sidiisaba shay walibana ama ummad kastaaba waxa weeyaan constructive iyo destructive waa dumiye iyo dhise labadaas uma umadu qaybsataa saxaafaduna sidaas u bay tahay saxaafadda Soomaaliland waxa weeyaan waa constructive kuwa Arabsiyo iyo kuwa gobolka waxaan ku rajaynaynaa inay ahaadaan kuwa wax dhisa nuyuusyada qaar amba interneta qaar baad hadaad akhriso istiraado aad ka caajisaysaa akhriskooga waxa ay ku qoraan iyo dhibaatooyinka ay ka sheegayaan waxa weeyaan wararka la sheegaya amba lagu qorayaa ha noqdaan warar muhiima oo dadka wax u taraya oo baahidooda ka turjumaya waxa weeyaan Arabsiyo waxaad moodaa inaan marka hore caalamka oo dhan ka xidhnayn laakiin maanta nasiib wanaag waxaanu ka qayb galay caalamka iyo horumarka ka socda haddii aan la yiraahdo noqon doona ku aad iyo aad noo intifaaca oo aanu caalamka iyo meel kastaba aanu maxay adeegsano baahidayada meediyahan maanta website-kan rasmiga ah soo furena waxaan leenahay kii isku xidha Arabsiyo iyo Soomaaliland oo aan odayaasheeda iyo dadkeedu aanay u darbanayn inay magaalada baahiyeega ka hadlaan oo Hargeysa inta ay noo jirtaa ay inaga sanad ay looga fogtahay inoo socdo oo aan magaaladu lahayn nin xildhibaano Cali Mareexaan iyo dhinacan oo kale oo albaab mara waracana aan lahayn in website-kan iyo dhalinyartana ay noqoto waxayaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Xasan Cawaala Caynaan xildhibaan Cabdiqaadir Xamuud gudoomiyaha ururka Afgarad Shiine iyo barasaabka xigeenka gobolka Gabiley waxaanay hambaliyeen shabakadan cusub ee maanta laftaa furayo iyagoo ku baaqaynahay inaanay noqon shabakadani mid dad gaar ah u adeegta oo dhanka xun wax ka sheegta ay noqoto mid ka shaqeysa horumarka degmada iyo ka gobolka iyo ka Soomaalilandba Arabsiyo magaceeda ku dhacay kulay danaheedana Arabsiyo way ka hadli doontaa laakiin waa mareeg inoo soo kordhiyo Soomaaliland oo dhan waxaan aad iyo aad halkan ugu dambeyntii ugu mahadnaqayaa hablaha qurba joogga ah ee la yiraahdo walaalaha Arabsiyo ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo runtii degmadan ka warhaya
halkan waxaan ka sheegayaa horta hadal baa la soo qadami jiray oo waxqabad soo qadima 4 kursi iyo miis ayaa lagu deeqayaa website laba soo gaaraysa marka waxaan kula talin lahaa inuu noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca isla markaana horumarka iyo wanaagga ka shaqeeya national interest baynu wada leenahay oo naga dhaxeeya national interest-geenu waa Somaliland marka dhammaan qof walba inuu dhinaciisa uu ka ogaado oo wixii dhaawac u keenaya in laga ilaaliyo waa muhiim. Barasabka gobolka Gabiley oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay mareegtan cusub ee maanta lagu taafurayo degmada Arabsiyo waxaanu sheegay inay mareegtan uga fadhiyaan inay noqoto mid ka shaqeysa horumarka iyo wanaagga gobolka Gabiley. waxaan leedahay website-kani wuxuu noqon doonaa waan filayaa ka hogaamiya website-da waayo waqti buu helay chance buu helay oo ka faa'iideysto oo mid walba wuxuu qoro maalin walba oo arko dabeetana qaldaadku arkayay ayuu asna qormaayo waa inuu saxaa oo ilaada kaasi waa wadadii ay kuwaasi mari jireen anaguna wadadii saxayd la marina mareegtan cusub ee maanta lagu daafuray degmada Arabsiyo oo sidata magaca isla degmadaasi lagu daafuray ayaa noqon doonta mid ku soo biirta warbaahinta ka howlgasha gudaha Somaliland iyo warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha Mukhtaar Ismaaciil Cali Somsa TV Arabsiyo.